nin burcaan u socdaa maanta leeyahay berberaan u socdaa le maanta nabad gogol in loo dhigo annagu ma qabno wax qabnaa dhul baahantay awoodooda in la tuso in hubka laga dhigaanu qabnaa in la dagaalamaanu qabnaa awoodeedina waad leedahay jaran inta laga dhigo bilayska iyo amnigii loogu aamino inaan khibrad bilaysna lahayn fulaynimadiisana aynu eegayno maalinta dagaalku dhacaya soo cararayay waan maydka reerkiisa aasi kale in qaranka loo dhiibo taas anagu ma qabno madaxweynaha taa kuma taageersan waxaan oran lahaa madaxweyne arrinkaasi eeganin in cabdalle daaqiliga ku ahaado ku jooga amniga ku jooga iyo caqliyadda caynkaasi ee garan weyday inuu iscaasilo maadaama soddon laba nin oo ciise muuse oo aaso السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داود الملك الصوت كده ونسان لقمان ميديا تي في waxaa khadka telefoonka si toos ah uga jira dalka Ingiriiska boqor Ismail Maxamuud Buurmadow boqor ugu horreyn soo dhawow arintii la saacanood laga dhawaaqay Soomaaliya ay warka ka soo saartay waad ogtahay maxaad ka oran lahayd horta de waad ogtahay anigu meesha waan ka maqnahay dalka hadda Ingiriiska jooga waxaan ka oran lahaana waxaan jeclaa inaan madaxweynaha arrinka u gudbiyo trial badanna waan sameeyay wixii fikir aan ka qabay iyo wixii hawl aan anigu isxilqaana ka qabtay inaan u gudbiyo way suuroobi weyday inaan telefoon ku helo madaxweynaha mana aaminsanay anigu in sidaa lagu daawado waxa weeyaan laba arrimood labadaba waxaan u arkaa xukuumaddu inay action ka qaado ayaan anigu qabaa madaxweynuhu go'aan ka qaato arrinkan dilkan ka dhacay magaalada Hargeysa waxaan u arkaa madaxweynuhu inaanu dugsan eedda intaa leeg waxaan xasuustaa berigii Maxamed Ibrahim Cigaal uu madaxweynaha dalka ka ahaa wuxuu wasiirka daaqiliga ka dhigay nin qootaali loo oran jiray reer Samatar madaxweynuhu safar ku maqan ayaa la dilay nin reer Samatara wuxuu yimi meydkii oo laba casho dibadda yaalo oo aasi kari waayay qootaali madaxweynuhu tallaabadii koowaad uu qaaday wuxuu arkay ninka kan meydka in adeerkii aasi kari waayay oo waliba la garanayo cidii dishay go'aan ku qaatay waxay inuu warqadda u horeysay markiiba uu kursiga xafiiska madaxtooyada soo galay warqadiisii erig u qoray marka maanta madaxweynaha walaalkay aanu saaxiibka nahay aan waliba aad u taageersanahay dawladda kula soo tabcay waxaan jeclaan lahaa wasiirka daaqiliga ee amniga hadduu garan waayay 30 sano inuu meydad ilmaadeeryadiisa u yaalaan inuu iska aaso caqli uu iskaga aasa garan waayay xirfadeedna garan waayay madaxweynuhu inuu go'aan ka qaato aanu fashilku madaxweynaha aanu xusayn dawladdiisana aanu xusayn isaga iyo ninka kan ciidanka bilayska haysta ee isagu magacaabay waan markayga horeba u arkayay ayaan darro inay ahayd ninkii ciidanka kaga soo cararay ceebta musabbixi lagu eedeynaya raggii jabka ka taliyay ciidanka qaranka kaga soo cararay gooja cadee soo jabiyay in amniga dalka lagu aamino markiisii horeba aan khalad u arkayay haddana waxaan ku oranayaa madaxweyne horta arrinka khalkhalka ku jira ee amnigii gudaha oo dhan saameeyay midadkana degdeg isaga aas kuwa amni kula xaliil karaya dabadeed maaha kuwa cadow dalka kala difaaci karayana maaha meydka in adeerkood 30 casho u yaale ana waxa la arrinkaasi intaanu adiga ku galaafan oo amniga magaaladu kharfin oo dawladeena quruxda badan aynu ku soo tacabnay aanu galaafan waxaan oran lahaa madaxweyne arrinkaasi eeganin in cabdalle daaqiliga ku ahaado ku jooga amniga ku jooga iyo caqliyadda caynkaasi ee garan weyday inuu iscaasilo maadaama soddon laba nin oo ciise muuse oo aaso oo raadkeedana uu og yahay boqolkiiba boqol halka uu ku dambeeyay iyo meesha uu galay cidda dilka geysatay oo aanay la garan lahayn cidda geysatay taas intaasaan oran lahaa horta arrimaha amniga madaxweynaha waxaan leeyahay madaxweyne arrinka dhaliil weyn baa ka taagan wax ka qabo xustay cabdideero booliska jooga eedama kaligi baa lahaa kale ka sareeyay ee saraakiishaha miyaan eedda la qaybsanay waa la eriyay nuuxtaaniya raggii eedda la lahaa maadaama la eriyay isaga si loo dalacsiyo jaran inta laga dhigo bilayska iyo amnigii loogu aamino inaan khibrad bilaysna lahayn fulaynimadiisana aynu eegayno maalinta dagaalku dhacaya soo cararayay waan maydka reerkiisa aasi kale in qaranka loo dhiibo taas anagu ma qabno madaxweynaha taa kuma taageersanin taas waxa weeyaan dumaan la ninka xishooda kama ilmo dhale madaxweynaha waxaan leenahay war labadaa nin ee ilmaadeer tahay inaad keento ciise muuse kamaad waayin rag badan baa jooga oo dalka kula difaaci kara oo wax qaban kara war 30 casho raggaa meydka ka aasi waayay ku dul fadhiyeen baanu ku leenahay yaanay in Hargeysa la isku dhiirado oo dhibaato dhacdana yaanay kaaga iman baan oran lahaa anagu ma lihin cid kale si ciise muuse waad ka helaysaa cid maanta qaranka kula daafacda oo xiniyeed iyo raganimadeeda iyo khibradeeda bale arrinka laascaanood anagu haddaanu nahay ciidamadii SSB raggii sameeyey
jiid 36 ee sool iyo sanaag ka sameeyey madaxweynaha 6,000 oo ciidan oo diyaarsanaa inay laascaanood qabtaan oo haddii aan laba leeyahay maxaabiistana xoog lagu soo furto oo ka dagaal galay dhowr madare iyo ceerigaabo oo buqdharkeyn ka dagaal galay oo ciidankii soo jabay moraalkiisa iyo jamhuuriyadda u nooliyay madaxweynaha iyo xukuumadda waxay naga codsadeen inaan ku wareejino waanu ku wareejinay ciidankii qarankana madaxweynaha waan hubaa inuu iyo janaka cusub dib habeen lagu sameeyay maanta markaa in la eegto oo laascaanada waxaasina kaga socdaan laascaanadu way noognahay oo dhulbaanta uu ku kala dhaqaaqay nin faarax garaadi maanta ma difaacay laascaanood maamulkii iyo taladiina way isku dileen nin xasan ugaasina ma difaacay wadalkiisa lugatoriya ragiisa halkii ka butiriyeen wax ciidan oo furinta u jooga ma jiraan 300 oo inan oo tula samakaaba xasan sheekh mushaar ka bixinaya maahe baahi buu la kala dareeray ciidankii halkaa joogay talabaad ciidankii deni ciidankiisi maanta sool buu gacanta sanaag buu gacanta ku qabtay sool maanta inuu xasan sheekh baylah ka helo oo aan ciidan ilaalinayaa jirin oo awood ina kaga gudbani jirin waxaan u arkaa inay dawladdu tallaabo ka qaado madaxweynaha waxaan leeyahay saa kuma eegan karee shalay xamsa inuu eeganay maantana waa meel cidlaa furinta waxa kuu jooga 40,000 oo ciidan ah oo kii hore aad habaysay iyo kii dambe aanu kugu biirinay iyo tiknikadii awoodii maanta awood waxaad u leedahay inaad laascaanood qabato aniguna waxaan ka aaminsanahay laascaanood dhulbahante in hubka dhigis lagu sameeyo maaha inaan maanta negotiation lala geli karin halka ay gaarsiiyeen iyo halka hankooda beenta ay taagan yahay oo iyagaan ciidan iyo awood ilaalisaa jiro 500 oo inana ku xiran maanta aanu jirin oo maamulkii jirin uu kala diray dhulbahante ham beena iyo hawa beena iyo hadal beena iyo hami beena oo xasan sheekh meesha keenay ayaa meesha taala ana waxa leeyahay madaxweyne gunto badhiga ka kac arrinkaas ha kuma eegan karo arrinkii gobasha ceerigaabo haddaan ka hadlana warsangeli gobol iyo nabad baanu haynaa diyaar baanu nahay madaxweynaha waa kala shaqaynaynaa waana ku taageersanaa laakiin wax dhulbahante la yaado oo sanaag raad ku leh waxa marxaati fiican ii furay raggii halka maamulka macamilka ku furayay ka dhisay ee laascaanood waxay qireen dhulbahante inaanu deegaan ku ahayn ma dhibaan iyo dhulbahante min hal xildhibaan baa looga ogolaaday inay ka soo qaataan sanaag marka marxaatigiina jana allah furabaan leeyahay waxaad doonaysaan meesha ku walaaqda waxaan wixii aanu oran jiray war sanaag meesha la yaado dhulbahanta deegaanka ma aha mana degana maanta mar hadday ka aqbaleen tolkood inay iyaga iyo madhibaan hal kursi qaataan inay sababay u yaadaan maanta sanaag baanu degnaa ama aanu nin aan gogol nala lahayn aanu ugu dhignaa ma jirto madaxweynaha iyo xukuumaddana ka yeeli mayno cid kalena ka yeeli mayno dhulbahante markoodii horena iyagoo nabada iyagaa 40 inaan magaalada usoo diro xabad ka bilaabay berigii hore aanu joognayna dagaalkii ciidankii maxamed siyaad barre iyagaa ka bilaabay mari dagaal allaha dago mar saddexaadii dagaasi allaha dago weeye aniga allahay dago markaa taa ka yeeli mayno maanta waxaan leeyahay madaxweyne deni hadduu sanaag qabsaday xasan sheekh maanta awoodu ku qabsado sool ma haystee sool inagaa joogna togdhow inagaa joogna maanta ninuu wasiirka warfaafinta lagu magacaabay iyo ciidamadii lagu tababarayay meesha la yiraahdo tuwasamakaab intuba birbiraan u soconnaa burcaan u soconnaa madaxweyne anagu ciidankaanu kugu wareejinay waxaan ugu talagalay inaanu dhulbahanta hubka kaga dhigno nagamaad yeelina waad nagala wareegtay maanta waxaan leeyahay qaranka iyo annagu iyo shacabku ma eegan karo in laga aamusnaado in nabad beenana dhulbahante loogu yeelo rag doonaya inay baabi'iyaan jiritaankaaga awood aanay u lahayn isaaq lama dagaalamin ciidankii shaqo qaran ee yaraabaynu laascaanood kulligeen ku eeganay tan ayna kaga timi maanta madaxweyne waxaan ku leeyahay annagoo ku taageersan annagoo kuula diyaara wax kasta maanta inaadan sidaa ku eegan waxaan kaloo leeyahay madaxweyne aan mar walba ku celinayaa dhulbahante gogol uguma hayno annagu ceerigaabo umana dhigayno haddii aad tiraahdo maanta dhulbahante gogol ha loo dhigana waxaad moodaa intayni is haysay inaynu ku burburayno ku kala jabayno
ninaan deegaanna nala ahayn rabshadna mar walba ka digaara maantana kaga soo goodiyaya burcaan u socdaa nin burcaan u socdaa maanta leeyahay berberaan u socdaa le maanta nabad gogol in loo dhigo annagu ma qabno waxaan qabnaa dhulbahanta awoodooda in la tuso in hubka laga dhigaanu qabnaa in lala dagaalamaanu qabnaa in xasan sheekh la ilaaliyo inaanu laascaanadu ka soo degin awoodeediina waad leedahay shacabkuna maanta waa ku daba taagan yahay haddii ay taasi dhacdana waxaa dhici karta madaxweyne shacabku inuu ina ka haro dowladdaada inuu ka haro inuu ka quusto shacabku sidii aanu isu abaabulay aanu 2 bilood gudahood 6,000 oo nin iyo isugu keenay 400 oo tiknika awoodii xiniye xoogina waa nagu jiraan shacabku inta isku tashan ee uu ku ogol yahay shacabka iyo dalkaba hogaamiye madaxweyne ka kac arrinkan meydadkan iyo waxaan yaalana madaxweyne bilaa caleeg dad aan ehlu ahayn khibradna u lahayn oo meydka aasi kari waa inay ku dul fadhiyaan eeday canaanto adiga ku timaada xaraan weeye wadana go'aan ka qaadan leeyahay intaan anigu leeyahay inta weeye boqor waxaa jirtay in ra'iisul wasaare xamse yimid iska noqday laascaano dadkeedii ay yiraahdeen waanu tashanay waxbaanu samaysanay hadda dadkii reer Sanaag qaarkood ay meesha joogeen ee Somaliland maalin cad ay halkaa ka timid oo ay ka soo baxday dadkaas in la dhibaateeyo oo dhiigooda la daadiyo ma sax baad u aragtaa waxweeyaan horta annagu in nabad lagula noolaadaan doonayni in wada hadal yimaadaan doonayni siyaasad doonaysa Somaliland inay dumiso oo awood iyo naf waxay haysay oo xasan sheekh dawladdiisa ay doonaysaa inay isku dumiso Somaliland inaan ku eegano xaraan weeye ninka doonaya inuu yaado hadii la burcaan u socdaa maanta ee aan doonayn ilaa inteedan dawladdu dhisanayn berberaan u socdaa ergaaban weeraraya ciidan ii soo samaysanayeen inaan cadowga halka ku sugo ma noqonayso waxaan qabaa in la weeraro waxaan qabaa in halkooda loogu tago waxaan qabaa inaynu awoodeedin leenahay inaynu dagaal la isku eego ka waaya aragno maanta aan xukuumadda lagu eegan baan qabnaa xal kale oo loo hayaa ma jiraan meeshii wax ciidan ah oo ina ka hor jooga oo maanta ina ka ilaalinayaan ma jiraan anigu waxaan qabaa in la weeraro wixii ina ka hor yimaadada shacabka la inmayna wixii ina ka hor yimaadana in hubka laga dhigan qabo awoodeedina inaynu leenahay qaba boqor arrintii saamiga ee la qaybsaday meesha ee dhanka Sanaag maxaad ka oran lahayd horta waxaan ka oran lahayd dhulbahante markii ay tageen dhulbahantii Sanaagna leeyahay Axmed iyo gaariyaankii deriska nala aha tuulada yar ee fiqiga ka soo gala waxay ku qanceen waxay ka yihiin Sanaag waxay saami ku qaateen madhibaan iyagu inay min hal cod iyo siwakhroon waxaan leeyahay iyo ay ka wada qaataan iyo Axmed Harti min hal cod inay ka qaataan marka maadaama ay ogolaadeen hal madhibaan iyagu inay min hal cod ka qaataan Sanaag anagu maanta iyagana waxaan u haynaa عد كما ديبان كسو كقاطو عرقابو وبانو هاينا وحكلا انو هاينا ما جرتو ترى ان كجليل ان ما جرتو تلكودي هدي wax sana ka yihiin kaga qaadan lahayn kaga qayb qaadan lahayn oo wax kaga dhacsan lahayn marka Axmed Karaash laabta ruuxi jiray waxaan u hayaa maanta abti waxaan ku hayaa cadkii ma diiwaanka ku hayaa Cergaabo si wanaagsan oo nabadgelyo aan ugu kaalay aad iyo aad baad u mahadsantiin.